saddex qofood ka badan macnaha lagu ma raaci karo markii la leeyahay anaga meesha hadeertaan meel walba horta noola taagan fahad dawladda macnaha ayada canshuur naga qaadato ayada wax walba macnaha aan maanta maxallahay aan ugu xisaabtamayso marka inay dadkii ay ugu la xisaabtanto hadana waa laga fiican yahay sababtoo ah dad su'aalayaal hore dalka maaragtay joog hub maaragtay ma qaadan karaan waxaas waxaan u arkaa inay maaragtay dawladda ay aragti kala leedahay oo maaragtay caburin iyo maaragtay ay tahay maaragtay يعني إن عدو لسلوجا إن يتهان واركا لكن ودن كان بقالي حتى إن نكون واربنا إذا سودمي اسمعنا أنا بقالي حتى إن نفول واربنا أصدق فكادو يسا وركاس المسعونة هذه بد حتى إن نريد أن نمر بي دتك إن لقنا عيا حتى تذكر مركي قف قري وتأي أركان حتى وأرجع حيان عبسي واي مركو حلوب هي معناها هبك أو علوس لا إلاليو شخصياتك أو معناها أو إلالة أنا إن التحضر لهذا iyadoo amar ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya saacadihii la soo dhaafay lagu sheegay in mootada bajaajta ah saddex wax ka badan aan lagu raaci karin sidoo kalena ay soo saartay in la xakameynayo hub culusna magaalada aan lagu dhex qaadan karin mas'uuliyiintana loo ogol yahay aaka oo kaliya wax ka badan aan la qaadan karin ayaa shacabku dhaqan magaalada Muqdisho aragtidooda weydiinay sidoo kalena waxaan la kulanay qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajta oo iyagana aan wax ka weydiinay balse ay arkaan go'aanka ka soo baxay dawladda oo afayeenka booliisku oo warbaahinta u aqriyay waxaana qaarkood ay sheegeen in ay amaradaasi ay ahayeen kuwa ay dawladdu ku soo degdegtay oo ka fiirsi badan aan lagu sameeynin halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen oo ay sheegeen in ay haboon tahay in xilligan hubka magaalada culus magaalada marka laga yareeyo maadaama amnigeedu uu soo hagaagayo halka sidoo kalena mooto bajaajileydu ay gabi ahaanba ka hor yimaadeen in go'aanka dawladda ay ku aadanay saddex qof ka badan aan la qaadi karin oo ay sheegeen in arrintaas ay tahay mid iyaga lagu cunaqabataynayo sida hadalka u dhigeen go'aankii dawladdu ay soo saartay inaan saddex qof ka badan aan qaadi karin haddii aad mootooleydii tihiin sida waragtaa horta ma dhici kartaba waayo anaga wadan Afrika oo iska duruufeysanaanahay wadankeena wadan hadda macnaha soo kubcayo waaye horumar iyo waxaas insha Allah sida oo macnaha dawladdeena ay ku socoto sida ay idin rabto waaye magaaladan Dubai aan ka dhigayo madaxweyne Xasan Sheekh macnaha hore u soco waxa sameeynaysan bal aan aragno dib ma lahan laakiin wadankan بقالي حتى إن نكون واربنا إذا سودمي اسمعنا أنا بقالي حتى إن نفول واربنا أصدق فكادو يسا وركاس المسعونة هذه يا أنا تاس ما من سنة أفر قف إن قادنا شن قف إن قادنا دتك وحيد بحنا $1 دتك والسكوت درسنا يا ماشان قف كل جا أولا لو إيجار جير قفنا إيجارنا يملا يعني أرنتاس واقصو هرجدا دولة دو حنك عسنا أما دولة دوسة أما وزارة قاديتك أرنتاس باوس هلا ده وحلقة تشتو حتى معنا فريمة تشي حلقة سمايو أنتي رمضان كأوكر ما هذا رمضان نقصده شعبان وكجرنا هذا أنا لقى خلي وزارة عسية نقطة أرنتاس waayahay hadda haddii 5 qof aa qaadaan tusaale ahaan 5 qofna ay shil gasho alla ma kase meesha soo qasaarahaas laga carri maayo adigna wadan horumar amal oo hadlooysaade war anaga haddaan korooyna aan ku dhahay adiga ya afrikaana naay wadan waxaan joognaa oo laba mar la qadayna laba mar la wax la cunaayo quraacdi canjaaro waaye canjaarada qadada iidan la waaye cashan la waaye adiga quraaci cashan la maro nin saddex waqti cunay ma jiro wadan horumaraya waxyaabaas araa ka joojiye iigal dhig kara war anaga fiiri adiga saana dhawaysa ya ma jirtaba adiga ya ani hadin ku sii adi wax ii qabano ya markaas aniga waa quraaca waxaada dhan laakiin hadda aniga macna qof $1 ala qof $1 aan qaada saddex qof $1 ii barma ani kaaran ku geey kara dadka waa isku ururiya ma fahmino annaga duruufana hayso Soomaaliya naay waxay qaataan 200 hal boqol wan isbiido ku dheela boqolna gabadho siina gabadhii ayuutay ku bixisay dukaanka lagu lahay bari fur le waayno meesha qoysaska Soomaaliya ay ku burburayaan warda taas waay ciidankan ha loogu daro lacag almeena boqol xataa ha loogu daro waayahay adi ciidanka hadda adaa soo hadal qaaday dhanka hubka magaalada waaweynka in lagu qaato kale dawladdu way diiday adiga sida waragtaa sax waay xabad xataa in la rido aan marabi dadka in laga naciyo hatta dad qaar markay qof qori wata ay arkaan xataa waa argagaxayaan cabsi waaye marka waxa loo baahan yahay macnaha in macnaha hubka oo culus la ilaaliyo shakhsiyaadka oo macnaha oo ilaalada inay taxadir lahaadaan oo xabada aysan u raacsaneen oo macnaha ammaanka oo kaliya ay furaan raacsiiskana ay gadaal ka dhigtaan saysan xabada uga fakanin aan ka codsalaa soo dhawow aragtaa go'aanka dawladdu ay soo saartay oo ku saabsan in maaragtay hubka culus magaalada aan lagu dhex qaadan karin oo wixii aaka ka badan aan la qaadan karin in la soo saaro soo aragtaa kulley de waa arkay social media kulley aan ka arkay de amarkaas waxaan aaminsanahay yani in hubka waaweyn yani
qof mas'uul oo soo wadan karin dawladdu waxaan u maleynaa in barnaamijkaas in laga fiirsanin wax maaragtay laab la kacna iska yihiin sababtoo ah dad maaragtay mas'uuliyiin oo dalkan maaragtay soo hogaamiyay iyo maaragtay muxuu ahaa madax maamul goboleed ayaa maaragtay ku sugan oo hore u soo hogaamisay dalkan maamul goboleedada maaragtay soo hogaamiyay qaybo kamid ah ayaa dalkan ku sugan marka dawladda ra'iisul wasaarayaal hore dalka maaragtay joogo hub maaragtay ma qaadan karaan waxaas waxaan u arkaa inay maaragtay dawladda ay aragti kala leedahay oo maaragtay caburin iyo maaragtay ay tahay maaragtay yani in cadowga la soo loogayo inay tahay u arkaa marka taas hubka waxaan is leeyahay waa dawladdu ku degdegtay arrin laga fiirsadana ma ahan dhigi karaa waayahay ma dhaqan geli kara go'aano badan oo soo baxay oo aragnaa oo la soo saaro go'aankaas isleedahay adiga de kulay inuu hirgalayo lama ahan sababtoo ah de qof mas'uul in la yiraahdo dadkii hubkii ama maaragtay wixii lagu waardiyaashii asiga maaragtay naftiisu u arko inay ay u yihiin waardi inay u yihiin oo u arko haddii la yiraahdo laga dhigo de cadowga lagu loogo waa marka cadowga lagu loogana cid qaadanaysa inay siin jirin aan aaminsanahay 100% marka inuu hirgalayo lama ahan laakiin magaalada hadda ma u baahan tahay magaaladu waa soo koraysaa waa qurxoonaanaysaa waxa soo saameyn kuma yeelanaysa والله دولة أيضا لقى ربع أنا إمارتها أنت أنا اللي دين وحياة بدن ولا سمين كرو أمني إمارتها يعني إنه سوها جاي موجين كرو أي دولة سمين كرتها وده الشارع حرنا ده ما أنت حرن دقيق الشارع يكون لامي جا كون حافظ إمارتها أفرت اللي نحكي حرنا ده ولسه ده حرن محو هاي مقالة مركز السوقلة هي إمارتها بابورتي بارتان كودي علاج ولين سيد وجرا ده دولة أيضا إمارتها وحياة أصلا تلابة أنا كقادم inay dhahdo muxuu ahay hubka maaragtay lagu ma dhaxarki karo magaalada de waxaan u arkaa waxa arrin siyaasadeed inay tahay de wixii siyaasad ku saabsan de kulay maaragtay inay hirgalaan ilaa ma aha amar dawladdu waxay soo saartay oo ku aadanaa in mootada 3 qofood ka badan aan lagu raaci karin adinka hadii aad mootoleytiin sidee waragtiin wallahi niyo 3 qofood ka badan macna lagu ma raaci karo markii leeyahay anaga meesha adeertaan meel walba horta noola taagan faan anaga dawladda u shaqeynaa dawladda macnaha ayada canshuur naga qaadato ayada wax walba macnaha aan maanta maxallahay aan ugu xisaabtamayso marka inay dadkii ay ugu la xisaabtanto hadana waa laga fiican yahay sababtoo ah dadkan Soomaalida ayaga macnaha qof hada 4 qofood isla socoto kale inay baabuur wacdaan ay ku qasbanaanayaan sababtoo ah anaga hal qofood reeb ma dhigi karno qofka anaga dadka u shaqeynaa dadka marka hore horta waa in laga soo dhaadhacsiyaa anaga macnaha dad masaakiin oo dadka u shaqeeyaanahay maanta qofka bini'aadamka waxa ku helaayo ku xisaabtamaa ما أنا ولا قفي عيا إن معناه برنامج قال إسكتو جديدين أرد جام كان أرد أنا كلا يرى يعني كبعد مركز وحي أمامير وهو كان سمينا لكن أرد مهمتي لما قف هذا وضع ألسا عبارة جام كجرتها معناه مركز هذه أنا قفك هذه ما أنت هذه ما أنت أنت ده ليس حلقة في داعش هذا أفرق من داعش مقالي كرت هذا نديله كده يمكن لا مركز وشنقف أما أفرق فقادين شلا قشين يا مسوري دقالة مركز ما يورت شيل كان معناه ولو سمية معناه ما أنت معناه وح والبورد أمر إلهي كل عن شيلك معناه وح معناه أمر إلهي وما أنا وحنا عوضنا مان مركب معناه تاس ضدك والو كلا يرينا ديلنا ماشي عشان قفوت يسدح قفوت اسكو مثله هو معناه هذا عشان قفوت قاضي هذا سدح قفوت قاضي شيل هذه اللي قالوا ولو سمية فان مركب واحد نيو شيلك وح كلا يراك كنا أرتم إن دولة ودوينك أيضا سو استاكتو أي ترافيك أي كانتو ودوينك أي كل نظام سو ودو أو فراغة وشيل أو كذا مركز سيمبري meel madax la isku jira la shil oo ka dhacay faan marka neeyo dhibaatada danka horta ayaga horta soo saacaan horta markaas la anaga ka baadi aan noola imaado diyaar una wax walba amaamir anaga waayahay sidoo kale hubka waaweynka magaalada ma lagu dhax qaadan karo aaka ka badan lahay ayadana say u aragtaa wallahi horta huwa dhan wana dhibaaba anaga hada mootolena huwa dhan horta dhibaan ku qabnaa sababtoo hadda markii mootada anaga la istaajiyo mid ugu weyn askariga markaas qoro wadanin نيو يقول رجع أنت أصعد وعديه كرتا لكن مركو قرر وتقصب وأظن مال أسعد إنه كوكي وكقصبية سوته إسكسر راعة مركو أنا هو أنا أرتدي بقى قبل إلا جورجيا ما قبلنا معك هذا موتيلنا فيري ورادي ده هم أمن ميلك وكان سناي هم اللي قاروري كرا يا دولة ده ما جاي تاجر سنتاي باي دولة دواي كسماعي دولة دواي هرجس دولة دواي عند دولة دواي حاجة دولة دواي ما جاي جدا إلى ذا يا أيه أنا الطريقة اللي باراي ما قد سأل دبت قدي كرا اللي باراي جد بونتي اللي قدها باري كرو اللي دبت قدي كرا مركز محقق من سنتين أنا هذا صورة قل عين مرادي فيري وردت كان تدواي وباين حق أود يا دولة أسرع سن دت شعب أسرع سن يربط دت كان هذه يا
marka amni ahaan iyo maxay ka war hadda amni ahaan horta waa fiican tahay. Faysal Cabdi Farax Kalson TV magaalada Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.